roobab lixaad oo ka daayay gobolka Sool ayaa waxay dhibaato weyn u geysteen wadada laamiga ah xidhiidhisa magaalooyinka Laascaanood, Adha Cadeeye iyo Goori Tuulo Samakaab. Waxaa ku dhacday dhibaato weyn halkaas oo daadadka ay la tageen buundooyin fara badan oo ku yaalay gaadiidka u kala goosha magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida galbeed iyo bari ayaa waxa ay hakad ku galeen muddo 2 casho iyagoo halkaasi taagnaa. Shixnadaha ay ka mid ka yihiin raashinka, cuntada iyo shidaalka iyo khudaarta waxa ay halkaasi dhibaato weyn kala kulmeen. Aasaaka ayaa waxa gurmad u faliyay ganacsada gobolka Sool, hay'adaha gudaha magaalada Laascaanood ka shaqeeya iyo mas'uuliyiin fara badan oo iyagu halkaasi gurmad ugu fidiyay sidii degdeg wax looga qaban lahaa dadka musaafirka ee dhibaatadan ay soo wajahday wax looga si sahlan wadadaasi ugu mari lahaayeen. Inkastoo ay wax laga qaban kari waayay, haddana waxaa jirta in la isku dayay in gaadiidka yaryar ay halkaasi maraan. Dhibaatadan ayaa waxay keentay kadib markii daadad lixaad loo ku soo rogmaday wadada laamiga ee iyadu magaalooyinkaas xidhiidhisa. Guud ahaan gobolka Sool iyo gobolka Cayn ayaa waxaa ka daayay roobab lixaad leh, taasoo la soo sheegay in halkaas ay ku dhinteen xoolo aad u fara badan ay dadka reer guuraaga haysteen. Siibo weyn oo wada jeedaan laamiga isdhexeeyay Adha Cadeeye iyo Goori roobab lixaad leh oo ka daayay gobolka ayaana gooyay. Anana saaka halka waxaan u nimid sidaan uga qayb qaadan lahayn masiibada dhacday meel fiican oo weyn maraya. hadda kullu waxa la wadaa barnaamij tambareeri oo maanta ka warku ku gudbi doonto barnaamijkaana ka shirkad ahaan iyo fasaxaan oo ka qayb qaadanayna barnaamijyada kale ee wadada lagu hagaajinayo insha Allah taala waan ka qayb qaadan doonaa dhammaan shirkadaha iyo bulshooyinka iyo hay'adaha caalamiga ah diba qaran baa dhacday insha Allah taala wajazaakumullahu khayran. Assalaamu alaykum. afar mitir oo ballacya ay go'an tahay in si degdeg ah oo emergency ahaana loo qabo oo backfilling loogu sameeyo oo haddii compaction lagu sameyn karayo lagu sameeyo si gaadiidku emergency ahaan u maraan in la filgalayo ama la buuxiyo volume-ka go'an oo muxuu ahaa hadda u daran in la buuxiyo ayaa loo baahan yahay oo ciidda materialka meesha ku habboonta loo keeno si dhaqso backfilling loogu sameeyo ay u baahan tahay. dabadeedna loo raadiyo xal waara oo wax laga qaban karo farsamo ahaan cilada farsamo ee meesha taala laga qaban karo raadiyo saas iyo marka shirkad ka dalris ahaan hadda waxa ugu badan ee hadda ka qaban kareysaan maxay tahay? wax laga qaban karaa in la iskaashado oo dadka la abaabulo cid waliba ay qaybteeda ka qaadato oo waliba anagu qaybta technical ahaan sida wax loo qabanayo ma ugu muhiimsan wixii kale contribution aan ka geysan karana way tahay inaan ka geysano xaaladda degdega ah hadda intan emergency intee ku dhamaanaysa maadaama gaadiid aad u far badan ay taagan yihiin. wallahi waxay ku xidhan tahay hadda sida loo abaabulo laakiin maanta ilaa labada gelin haddii la shaqeeyo dee waa la buuxin karaa godkan weyn oo baabuurta kala xidhay waa lagu buuxin karaa haddii iskarogooyin dhowr la adeegsado iyo shaqaale si degdeg ah godkan loo buuxiyo waxaa la samayn karaa in godkan la buuxiyo maanta waa laga shaqeyn karaa haddii culays la saaro. waxaan la kulanay wadadii taasaa waxay u keentay safarkeygii aan ku maraynay laamiga inuu hakad galo. marka waxaan ku sheegaynaa hay-adaha caalamiga ah inay si degdeg ah arrintan usoo gurmadaan. waxa weeye shacabkii labada dhinac bari ilaa galbeed ayaa kala go' ku yimid, wadadiina waa go'an tahay. hadda sidaad u jeedaan waxaa lagu ruminayaa in la soo buuxiyo oo dhagax mataqaana kor lagu soo qaado kadibna ciid dusha lagaga shubo si waana temporary maaha wax joogta waa arrin temporary. marka waxaanu leenahay sida ugu farsaha badan waa inay hay-adaha caalamiga ugu soo gurmadaan meesha. ilaa iyo haddana waa la xiirayay waxaanu soo taagnay xalay fiidkii soo taagnay marka ka waran wadadani muhiimadda ay u lahayd wadayaasha baabuur. wallahi wadadani aad bay dib hore u fiicnay wadada istaagan maahay nabadgelyada ha ahaato ama ha ahaato muxuu ahaay iyo socodka isu gudbaya habkastaba ha ahaato wadana de ilaa Hargeysa isku xidhaa. marka balka hore gaadiidka ka taagan labada dhinac hadeertaan xagee kala yimaadeen? wallahi gaadiidkaas wuxuu kala yimid ilaa iyo gobolada bariga ilaa gobolada waqooyiga ummadii oo dhan baa meesha ku dhan. marka maxaad ugu baaqaysaa hay'adaha caalamiga iyo kuwa international? hay'adaha caalamiga waxaan ugu baaqaynaa inay dalka iyo dadkaba wax u qabtaan. intaasaan ugu baaqay. marka
حاجات هذا وكتير مركورة أنا شبوت أنا شبوت ما كتير ماذا مركب بالكور إن قرمت سوي استكتين واحد سوستة حالة سوستة أفرتها بيني مركا يعني واحد درتان حالة هذا هيسان ونوع ما سله حالكم حلو قنية بكلته حالكم أنا قاست ديار دل تاجوا يا لانك مركا حاجة كوسدان قاست قال كاين كوسدنا مركا محد باقي سان شعب كريلا صعنود هنا يدين موضوع قاني dadkan dad dhibaataysan maasha maatay dumarkii waxaan deesku dhibaataysan نظام مقعد كبلاوي أحمد قاس عبد الله waxaanu ka soo qaadnay Ethiopian baasha kala nimi marka la ascaanood baan ku sinay marka waan ku xayiranay meesha waan ku xidhanay marka meeshu waxa ay la timi baabuur ilaa 100 gaarina waan nahay marka waxaanu meesha in wax laga qabto imika waxa ugu dhow xal lama iska rogooyin iyo loo jay loo diro meesha rakaawo meesha lagu shubo wax kale xal nooma dhaw 2 bilood ayaan ugu qaadan karaa sadii marka inteen lagba xaqad marka hore ka timaadeen waxaanu ka nimi Ethiopian marka maxaa sidaana waxa sidna tomato أنا واحد سيدا تمرد مركب بالكور دباتين تلقى tomato dibaato waxay ku leedahay dibri ay joogto wadacas qaadan ma مركب حد كل سنة هيدا عالمي wax ka qabtaa waxaanu ka codsanaa wixii wax ka qaban karayaba inay taagtooda gobolka Sool iyo gobolka Cayn ayaa waxa ka daayay roobab lixaad leh taasoo la soo sheegay in halkaas ay ku dhinteen xoolo aad u far badan ay dadka reer guuraaga haysteen Cabdikariin Olol xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka